kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii afraad ee sheekadii cirbadii eelka reebtay. sheekadan waxaa qoray Cabdullaahi Saalax Axmed waxayna ku bilaabanaysaa qaybta afraad. habeenkii oo dhan aniga iyo labadii hablood hooyan dul fadhinay ilaa ay waabarigii ka soo miirsatay. indhahay kala qaaday balse ma hadli karayn. waxaan degdegna looga soo saaray qolkii, hooyana qolkii qalliinka ayaa loo diyaariyey. dhaqaatiir badan oo isdaba yaacaysay wayna dhaafeen. ugu dambayn qolkii bay hoos ka soo xirteen. 2 saac iyo xoogaa ay meesha ku jireen ilaa markii dambe ay ka soo faaruqeen. markan waa badannahay oo xaafadii jaarka ayaa dad badan garbahayga tuban yihiin. dhakhtarkii oo nagu soo socda ayaan ku yaacnay. wuxuu isku dayay inuu na dejiyo. hal mar ayaa la wada aamusay. markii dibnaha uu furay, amar cid bixisay aan la garanayn ayaa loo hoggaansamay oo toos afkiisa loo daawanayay. wuxuu galay khudbad dheer aad buuna u arartay. inta uu hadlayay boqolaal fikradood oo 10 ayaa maskaxdayda ku soo baratamayay. wuxuu khudbadiisii dheereed ku soo gunaanaday sidii uu ku soo dhamaaday hadalkii dheeraa ee islaantii ii soo jeedisay geeridii aabbahay. samir iyo iimaan adeer ayuu aayar ii yiri. oohin iyo qayladhaan ayaan isku daray. markaas ayaana miir iigu dambaysay. 48 saacadood kooma ayaan ku jiray sida markii dambe lee sheegay. indhaha kolkan soo kala qaaday waxaan arkay dad sariirta madaxa ilaa iyo lugaha fadhiya oo hinban la sara kacay. way i qabteen oo dib bay ii jiifiyeen. ayaama ayaan ku sii jiray isbitaalka oo xaaladaydu ay soo hagaagaysay. waxaase igu murugo badnaa maalmihii dambe wuxuu ahaa anoo aan meydkii hooyo arag oo aan ku sii samrin. waxaasoo dhanse aniga oo ay ku dhaceen waxaan uga soo gudbay iimaankayga oo xoogganaa. si yar baan cidladii ula qabsaday. ayaamo badan keligay ayaa sii ooynayay. intaaba darisku way ila jireen oo waa ay i barbar taagnaayeen. cusbitaalkii waan ka baxay. dardaaran buuse dhakhtarku i faray. igu soo noqo si aan xaalkaaga uga warhayo ayuu igu sagootiyey. markii ugu horraysay xaafaddii oo aan hooyo joogin ayaan iridda ka galay. alaabo yaryar ayaana ka soo qaatay si aan u tago xaafadda jaarkayaga oo aan sannado badan saaxiibo dhow ahayn. shay kasta oo xaafadda yaalla xusuus gaar ayuu i gelinayaa. maalmihii iftiinka badnaa ee noloshaydana dib baan u xasuusanayaa. ma adigaa 3 qol dhex meeraysan kara ayaan isiri. waan ka soo baxay. dib u gelitaankiisana niyad uma hayn. wax allaala wixii ila soo gudboonaadaba taageeraa diyaar la ila ahaa. muddo ayaana la i baxnaaninayay. intaa kumaan noqon dhakhtarkii oo maxaan ka dooni bil iyo barba maan tegine. haddana wax liigu dhiiriyaba waxaan subax u soo kicitimay dhanka cusbitaalka. soo dhowayn aad u wanaagsan ayaan kala kulmay dhakhtarkii. cabbaar ayuu i waraystay. dabadeedna dhiiggayga ayuu cabbiray. dhiig in la iga qaado ayuu amray. waxyaalo kale oo aanan garanayn wuu u sheegay inantii dhiigga iga qaadaysay. dhakhtarkii wuu ii sii sheekeeyey culays maskaxda iga haysta oo badanna wuu iga fududeeyey. ugu dambaynna isbuuc kale ayuu ballankaygii dib u qabtay. waa isbuuc kale oo aanan shaqo tegin, xaafaddiina aanan ag marin. sariirtii la i dhigay ayaan weheshanayaa. mar walbana laabanahay. xaafadda aan joogo dadka ku nool oo dhammina waxay isku howleen maaweelintayda. qalbi wanaag iyo naxariis saa'id ahna way ii muujiyeen. haddana kalinimo ayaan dareemayey. in cidla ciirsila gabal iigu dhacayna way ila ahayd. maqna jooga baan ahaa. iyadoo hadal la wado ayaan caalam kala tegi jiray. mar dambe ayaan sheekada ku soo habhaaban jiray. haa ama maya ayaana iska odhan jiray. saaka waxaan diyaar u ahay inaan booqdo isbitaalkii aan isbuucii hore ballanka ku lahaa. waan soo gaaray. soo dhowayn aan tii hore ka yarayn waan la kulmay. wuxuu iga waraystay dhakhtarkii xaalkayga. warbixin kooban ayaan siiyey. dabadeed wuxuu gudagalay in uu iga warramo xaaladayda iyo in la iga baahan yahay inaan sidan wax ka bedelo. miisaankaaga hoos ayuu u dhacay adeer. sidan naftaada ayaad ku waxyeelaynaysaa. talobixin kale oo badan oo habnololeedkayga inaan wax ka bedelo ah ayuu i siiyey. ugu dambayn wuxuu yidhi adeer waxaan kaloon doonayaa inaan kuu sheego xaalad cusub oo caafimaadkaada ku saabsan. ee diyaar ma u tahay inaan kula wadaago? haa ayaan cod hoose ku idhi anoo naxsan. arar dheer ayuu ii galay. caafimaadka qofka iyo sida marba xaaladdiisa ula soo gudboonaato ayuu ku dheeraaday. hadalkiisa isagoo sii wata ayuu yidhi ma aha xaalad culus. waa xanuun bulshada qalad ka fahanto. haddii aad sida uu yahay ula dhaqantana waa xanuun lala noolaan karo. maalintii dhiiggaaga la tijaabinayay si aad hooyo uga shubtid ayaan xaqiijinay. HIV virus ayaa dhiiggaaga laga helay. intaa markuu yidhi wixii ka dambeeyey aniga iima uusan wadin. miirkaygana ma joogin mana maqnayn. ilimada ayaa iga socotay. waxaan hinraagga iyo dhugta wadnahayga ahaynna ma maqlayn. kelmadda aidis ayaa maskaxdayda ku soo dhacday. dabcan hore waan u maqlay. maantase waa si kale. maad iyo dad xun ayaan sawran jiray. maantase si ka duwan sidii hore ayaan u fakarayaa. waxaan isweydiiyey xaggeed ka inkaaran tahay.
waa adigii horay u waayey labadii waalid ee aad keligood adduunka ka eeganaysay maantana adigaa xanuunkii dunida ugu darnaay lagugu sheegay daawadayaal waa naga intaa qaybta afraad sheekada cirbadda eelka reebtay intaan ku kulmi doonno qaybta shanaad ee sheekadan nabadgelyo